السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قيمها يقايها لو هرتال كاسان يرجع لنا كل إيلاب ولكن تحكيم ما تكرر في الفيديو. الحمد لله وكفر أحسن هاي ما شاء الله. أصحاب تسود وهذا سبسكرايب لايك شير كومنت انت الله صار أصحابي أتحكيم سود وهذا أصحابها أصحابي أدبا نودنا هاي سود وهذا دينك كنالك وكنالكينا ما شاء الله. سو نقد ونكسل halkan waxaan ka sii wadi doonaa dula yiraahdo tripka ruuxan halkan isfahan waaga af Soomaaliga lahjadaha aan hor ugu wareysanay ninka la dhaho Xasan maanta waxay noo fadhiyo walaalkan Xuseen ما شاء الله ديار صاحب waan ku faraxsanahay mar waliba in wax la isweydaarsado anigu horta waa Xuseen Cumar Xuseen kuna magac dheer Xasan Xuseen ama Xuseen Mataan ama Mataanaha Jabuuti saddexda waan wadaagna ما شاء الله asxaabi soo dhawaada horta حسينو مهمتنا نسكسي جود قلنا يا بل وحاول بحنا جالس صارت لها جدها ما دام عاد سفر دير سوق شيء مرتا انت سؤالها انك ويدين مرتا ما دام سفر دير سوق شيء بل جدها ينوصل المربلات كل الدول على سوق انت ما شاء الله صاحب ديار بانو هاي horta waxa weeyaan wadan marka timaado wadan kala timaado kulliba isku mid maaha raajidu imika waxaan waa tiraahin soorta anagu waxaan naqaanaa madartay qof la casuumo si fiican qofkaas waa la sooray qofka waa la sooro qofna marti qaad adu sameeyso khatara si fiican habeenkii aniga ugu horeysay la yiri caaw waxa la sameeyay soor waa gartay waxaan siriyaa maanta kaligiin baa la marti qaadiban waa farxay aad baan u farxay anoo faraxsan xitaa aad ugu faraxsan yaaba meesha lay soo dhigayba baashan Jabuuti ku garanay shuuro bal soo dhigay shuuraha waagi Jabuuti macna jirtay inta lagu soo dhigay koor niyo shuuradaas anu Jabuuti hal maalin baan waa gartay horta dadka reer Jabuuti inta badan waxay isticmaalaan baasti bariis Soomaaliland baa inta badan isticmaasha waxa kale iyo waxyaabo yar oo kala fudud marka cuntooyinka dabiiciga waxa cuna dadka ma yartay reemiga dadka dhulka ka soo qaday si wanaagsan meel waxa jira lagu sameeyo oo meel afni baansis leeyahay صح oo dumar baa ku iibiya oo lagu ganacsada meelahaas marka qood dadku waxa ka soo qaata dadka meelaha ka soo gala yaa intay soo qaataan waxay qeybna lacag yar la gadaa si wanaagsan qaybaad soo gadanaysaa ama soo iibsanaysaa biyaha wax lagu shubay caana lagu laaqaya waa سلسلة لعب مرك عليه كان والعبية لما عليه لما عليه والعبية وبشارع من العبية أكيد ولا لا وسكع عاد وسكع هذا وسكع قدها السنة سيمونة مرك عليه كا واحد عادي هنا صاحب نوكي بدي سومال أكيد يجي بهرش هكا قبضته أنا هنا وان ودقني قرب وان ودقني وحيروح يريد نيو بهرش عبانو بهراي صح مركز دور جرب نقول إيش بهرش ما نهلين بهرش مينا جبتي اللي جهلين suuradaas si wanaagsan noo meel baa wax ka yiraahdo markaad meel baa lagu iibiyaa meel baa lagu iibiyaa ma isticmaalo sax oo ku geyn soo qaado iska meesh markaan tagnay haddana waxay ka qabsatay inuu isaga yiraaho maadaama meesha keentaadna ila waa sheeko kale maadaama aad keentay inaad la sunnaysaa ma aad la cuntaa habeenkaas sanad baasha Xuseen waa gartay soorta waa garanay اللهم صعب كورن عنجرة horta waxa loo yaqaanaa maxay canjeero bahal canjeeradu way kala duwan tahay sida loo kala qaado Jabuuti canjeerada mid waxa jirta canjeero Ethiopian si wanaagsan oo weyn baa jirta daafida canjeero Ethiopian daafiga waa marka laga sii sameeyay waxa laga sameeyo taas baa la canjeero Ethiopian baa la si wanaagsan taas Ethiopian-ka yaa sameeyay waxa jirta meel lagu sameeyo lagu ganacsado si wanaagsan oo madartay meel Ethiopian uu leeyahay waa lagu ganacsadaa ta canjeerada kaliya tamaha waxa la raacinayaa aydan waxyaabo yar oo hilib yar si wanaagsan ma asxaabta dadka inta badan canjeero Ethiopian dadka dooda cunaan aad baa loo bartay xamar hadda laga helayaa sax magaca loo yaqaan canjeelo Djibouti waxa loo yaqaan luxoox si wanaagsan luxoox waxaa maqli jira looxa dugsiga ciyaalka dhigtay baa maqli jira looxa cuniga looxa loo soo gado si wanaagsan loox baa la dhahaa rootigan maxaa la dhahaa
bahalkaa rootigana halkan nugaa tiraahin amaanta ugu horjirto hayaa aye habeennimadii baa casho waxaa naloo sameeyey waxaa suqaar baa naloo sameeyey sax la jarjaray yeelase markaa waxaa la yidhi inamadu waa reejurtay inay ku cunaan baa la yidhi rooti marka gabadhu way baxday ahayd inamadii maaragtay meesha joogay baan inaan weydiinaan rabay inamaduna anagu rooti ma garan waxaan furankii baa la keenay maan inamada furun baa loo qaana Djibouti furankii baa la keenay way yaabasabna furun waa maxay anagu rooti ma garanay walaal gabadhii shaqaalu mayna furankii keenay waar cabbaan markaan isla dhiban iyo ilaahayn sidan isku fahmayne bal tusaale noo sameeyay macno aye waxaan macnihii baa yaan sameeyay sax waxaan nidhi waxaan lagu sobay suqaar wixii lagu cuni lahaa ma rooti baad maanta oo dhan aan garan lahayn bile albaab xir in allah yumna iga fura waa gartay rooti ma tiraayin furunkan waxaad ka sheekeynaysa maxay tahay ni wallahi Xuseen Soomaalida xasan baa waxaan ka hayaa kelmad oo yiri maalin loo duxay Soomaalida waa isku ilaahay yiri la isku afmaamiyo wallahi isku afmaa waa gartay aan barnaamijkeena iska sii wadano Xuseeno bal maxaa warbixin naga siisaa waxaa jira koonfurta waxyaalo badan oo la isticmaalo ay ku caan tahay magaalada Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya waxaa ka mid ah Isbaanishka no Isbaanishka horta anu Djibouti ka lagu isticmaalo hadii la sheego kubaana si wanaagsan ma yasaga qaas wuxuu taa koonfurta Soomaaliya Soomaalida kale xataa lagu isticmaalo in halkan laga qaado la geeyo mahane sax lagama helo dadkana inta badan ma yaqaanaan Isbaanishka laakiin qofka hadii uu koonfur yimaado oo la kulmo marka hore qofka markii la Isbaanish muxuu yahay Isbaanish baa la dhahaa markuu dhimay kadib buu ogaanayaa faa'iidada iyo macaanka uu leeyahay markaas uu cunayo qofka aadna waxa loogu isticmaalo koonfurta Soomaaliya sax bal baalka Isbaanishka bal warbixin noo yar nooga taabo hadaba aad cuntay waa sala cunay lana adiga ma horta waa run Isbaanishka adigeedu markaan weydiinay tirana bay soo gaday waa adiga markaad soo gaday Isbaanishka horta waxaan mooday wax yar oo jilicsan oo khatar ah wax walba waa la arkaa mugta si wanaagsan Isbaanishka waxaan mooday wax yar oo saaid isku dunyada yaala oo ruux badan صح يعني مود تربوتها شو نايسن لكن waxaan arkayba markii aan ilig saa ugu jiro ilig ay dhici gaarin ma dhacay de aday lafta ku muday oo meesha ku jirta wax muday ma garanay saadiyaan yiri qa marka laf wuxuu leeyahay umleys markii baalkan uu dabolan yahay qurux badan yahay markii la goosto kadib waxa ka soo baxo laftiisa waxay leedahay konton waxaanada leedahay oo kasaan ugu taagan oo qodaha umleys qofkaana garanaynin maartay ii sheegeen ilkaha buu ka galaya ciridkii ka mudaya inaad rimaad sheegin taadu waad ku gaasay sidaba qofka bini'aadanka hadduu shay ku jabin isma bartaan been maaha marka jab kala soo kulantid markaas is baranaysaan صح لكن markii dambe faa'iidadu leeyahay markaad ii sheegtay ilagay go'an loobay si fiican haduu si fiican loo wax badan laakiin waan iska dareemo la baalka marka waa in nafaqo badan buu leeyahay vitamin buu leeyahay ma sha Allah niyo bid kale to waxa jirto kalmad kale to inaan ku weydiiyay ad magac igu sheegtay magac waa in loo wada armaajada tan hadda la yidhaahdo armaajada maxaa taqaanaa kan waxa la yiraahdaa kabar كور مصر هي متك حبلها قات قضية مارتي فنيان ماي جود كا واحد لو يقان ميس كاس الميس كنا كور قات كلا دول تجات ما ميس باك لو يقان واقرت كان هو كمان كم تيجا كسو جنا جاب بدنا كسو بعدات يا 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 برنامج كونيو احنا كسو جلنا هذا قمت قبل ينسي جلنا دولنا لك النقطة بس كسو قبل دونا سيدو waxa kale wax warnaga siisa ukunta magaceeda waxa loo yaqaan naalo ukunta waxa dhacday subaxan ma aragteen soo kacnoo quraacanayn ya ma aragtay gabadha tiri xasan xuseen maanta ukun baniisani waa gartay marka waxa waroo u maqan wax ajiib kula noqonaysa wax si fiican waxaan aragnaa naaladii aan garanayo iyo farmiga iyo rooti duliyaan
furanka iyo naaladii gabadhi baa laajidii waa saad labada bart laba shay cusub lagu keenay roodhi iyo ukun aad maxaa taqaanaa furan iyo naalo Soomaalida lahjada Soomaalida aad bay u tiro badan tahay laguma soo koobi karo barnaamij aan soo qabanayno ama maartay wax yar aan kaga waramayno laguma koobi karo soo fahmin insha Allah badin doona كلم كحي واحد جند ولا هذول يعني حسن حسين وظف اليو لبدي من نسكي دين دونه ورئيس بدنا سكادة تنتانو بل نول وحي عصب أو برتي وحي وكوج هاي يوحي حرق ويقاني يوفعل كي وحي وكلا كل مي صح يعني إن شاء الله تعالى هالك ساد برنامج كأنه كسوف مرينا وكسوق وقبلنا حسن هاي ناس حسينه يعني أصحابي كل يلعبان جعلنا هاي سبسكرايب تلاقي وشارك بالموجود ديالنا وحنا لنا وراك تحكينا قرب كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.